بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد أيا سنتهين جالية نروي يا غيبها كلا كترسن يوروب عاو هل كان كسجن وحن آد وقعد دارنا ضد آد أفر بدن والصوماليات أو ولا إن يسروب وإذا هولك إنه قاضه oo ay banaanka naga joogaan ama soo gali waayeen waa ka cudur daaranaynaa waana u mahad celinaynaa dadaalkooda iyo nisbada. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa soo dhaweynta diiran ee jaaliyadu iyo asxaabta iyo dadka eelka oo dhami ay halkan nagu siiyeen. aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu sii mahad celiyo dowladda Norway oo runtii soo dhaweynta halkaan lagu soo dhaweeyay aad iyo aad ay u sareysay. 2 maalmood aan dalka joognaa laga soo bilaabo boqorka dhaxal sugaha boqortooyada ra'iisul wasaaraha wasiirka arrimaha dibadda iyo gabadheennii maxaan ku rahay wasiiradeeda u dambeysay halka xafladda nala joogtay intaba dowladda Norway aad iyo aad ayay noo soo dhaweeyeen. waa ka mahad celinaynaa. waxaan rabaa inaan intaa ku daro Norway waa markii ugu horreysay madaxweyne Soomaaliyeed oo xilka hayo uu yimaado, laakiin sida ay tahay haddana aad iyo aad ayay Soomaaliya u garab istaagneed muddooyinkii dambe oo duruufaha adag dalka uu ku sugnaayo dhan. Norway waxay qayb weyn iyo sabab weyn u ahayday arrintii deyn cafinta ku saabsaneyd. waqti dad badan oo caalamka ama dawlado badan oo caalamka aanay diyaar u ahayn inay xaddiga dhaqaalaha lacagta cafinta cafinta Soomaaliya lagu bixinayay oo haddii aan la bixin lahayn ee nagu adkaan lahayd inaan hor u soconno ayay Norway intay imaadeen ay lacagta horta inteedii badneed ay naga bixiyeen si processku u socdo. maaha lacagtii la cafinaya maaha, laakiin midii fududaynaysay in maxaan ku raadayo wadada deyn cafinta hore loo sii qaado. marka aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa. duruufiya adkaa intii dalka ka jireen oo dhanna dalka Norway waana garab taagnaay. waa ka mahad celinaynaa dadka Soomaaliyeed ee jaaliyadda halkan laga ammaanay caawa ammaanay noo wada tahay. sharafta iyo maxaan ku raadayo karaamada iyo magaca dadka jaaliyadda Norway ay ku leeyihiin Norway dhexdeeda yani Soomaaliya dhan ayay u tahay runtii ammaan iyo muxuu ahay qadarin. anigana runtii aad iyo aad ayaan arrintaas u bogaadinaya. dalkan dabcan waana soo dhaweeyey duruufo adag markay dalka jireen dadaa yimiday caruur ku dhalay degan ilaa maantana degan oo qaarkood mas-uuliyiinta dalka Norway ay ka mid noqdeen oo maanta dalka Norway ay mas-uul ka yihiin shacabka Norway. dad dowladdaas iyo dadkeedu muwaanay abaalgud nagu lahayn waa nagu leeyihin soo maaha. waayahay abaalgudka ugu fiican ee aan kari karno ee aan sii karno marka muxuu yahay? waxa ugu weyn ugu muhiimsan wuxuu yahay dowladda shuruucdeeda iyo nidaamkeeda iyo qawaaniinteeda inaan ilaalino. waa hadiyada abaalgudka ugu fiican ee aan maxaan ku raadaay aan u abaalgudi karno. waay dadka reer Norway dhaqankooda iyo habnololeedkooda ayagana sidoo kale inaan ixtiraamno aan ilaalino aan qadarino waa hadiyad kale ayadana aan ugu abaalgudi karno. waay sidaas daraaddeed waxaan kula dardaarmayaa dadka Soomaaliyeed ee reer Norway inay aad iyo aad u ilaaliyaan dalka sida wanaagsan ka jaaliyad ahaanna idiin soo dhaweeyey. dalkiinii adigu aad ka timideen oo duruufaha adag ee jiray ee idinka keeneen sidoo kale meeshiisa ay ku kaalmeeyeen, hadday siyaasad tahay, hadday dhaqaale tahay, hadday humanitarian ama muxuu ahay bini aadamnimo ay tahay. intaas uga baxo waxaan rabaa inaan u imaado Soomaaliya. walaalayaal sida halka caawa halkan laga cabiray dadku odayaashii waaweynaa ee halkan ka hadlayna ay sheegeen abwaaniintiina ay maxaan ku raadayay ku cabireen sugaanta dalkeena Soomaaliya hore ayuu u socdaa. waa daahnay 30 sano muddo aad iyo aad u dheer waaye oo ummad cimriga qofka ku dheer laakiin cimriga ummadaha kuma dheera 30 sano. laakiin qofka bini aadamka shakhsiga ah
soddon sano cimrigiisa way ku dheer tahay muddo dheer waaye soddonkaas sano intaa dalka horumar baa ka jiray marba marka ka dambeyso si unbaa yaa looga roonaanayay laakiin waxaan isleenahay wixii la qaban karay waxoogaa gaabisaa ka jiray soddon sano meeshii la rabay in lagu soddonkaas sano waa soddonka sano ee adduunyada ay horu martay waaye waa soddonka sano ee science and technology ay horu mareen waa soddonka sano ee dunida isu soo dhawaatay oo laisdhex galay soddonka sano annaguna aan maxaan ku rahdaa waxoogaa aan mashquulsanayn waay marka waxaan rabnaa dee howl badan noo taalla inaan adduunyadaas tagtay soddonka sano naga tagtay inaan ka daba tagnaana laga rabaa oon ka daba cararno si aan uga daba tagno waa inaan marka dadaalkeenna badinaa shaqada aan qabanayna laba laabnaa saddex laabnaa wixii toban sano in lagu qabta ahayd waa inaan soo gaabino 3 sano 4 sano 5 sano u badnaan ku qabanaa sidaasaan uga daba tegi karnaa laakiin adduunyada hadday sii socoto annaguna inta adduunyada ku socoto kale aan kusoo daba socono weligeen waa farq gaabka noo dhexeeya ama distance noo dhexeeya wuu noo dhexeynaya laakiin inaan annaga ka dheerayno adduunyada oo aan dheera inta ku socoto orod ka dheera aan ku gaarnaan rabaa sidaas daraaddeed dadaalada Soomaaliyeed ka arkaysaan oo faraha badan oo yani barbar socodka shaqadaan qabanaynaa ka bacdi taraan ku xijinaynaa haddii aan dhahno waqtigu nagu dheeraanaya dhowr shaqo inaan isla qabanno oo isku mar ay socdaan waaye sida aan maxaan ku leeyahay dunida carartay ee naga fogaatay aan uga dabatay waa sababta dalka in khawaarijta laga xoreeyo dastuurka in dib loo eego nidaamka federaalka in la xoojiyo nabadeynta iyo maxaan ku raadayay Soomaaliya gudaheeda laga shaqeeyo caalamka nabadeyntiisa aan ka shaqeyno Soomaaliya nabada dunidana nabad la waxay ahayday halheyskeeni waan ka dhameyn ilaa hadda dalal badan oo shalay annagu intaanan iman talada Soomaaliya cilaaqaadkoodu aad iyo aad u hooseeyay dib u soo celinay kuwa badan oo isku fiicnaan shalayna waa si fiicnaynay muxuu ahaay cilaaqaadkooda sidaas daraadeed Soomaaliya iyadu nabad isla ah dunidana nabad la ah ama heshiis la ah saaxiib la ah waa mid aan ka shaqeynayno ilaa haddana waa ku socno waxaan rabaa nimanka la yiraahdo khawaarijta 17 sano ay dalka Soomaaliya ay dib ku hayeen oo 34 sano oo burburkii dawladnimadeena ka dambeeyay kamid ah jamhuuriyadda saddexaad siday u curatay dalka Djibouti carta labadii kun laga soo bilaabo 24 sano 17 sano kamid ah nimankani dabar ay ummadda Soomaaliyeed ku hayeen iyaga oo ummadda Soomaaliyeed wixii ay ugu jecleed ugu aaminsaneed ku midaysneed xaggeeda ka soo galay oo diinta islaamka alxamdulillah dadka Soomaaliyeed maanta waa fahmeen nimankan khawaarijta ah in aanay diin ahayn waxa ay hayaan iyo dhaqanka ay hayaan iyo waxa ay sameeyeen laana dadku way tuseen way arkeen diinta islaamka waa diin nabadeed waa diin maxaan ku raadayay naxariis waa diin maxaan ku raadayay ixtiraam iyo qadarin iyo walaqad karramna bani aadama ayu ila human rights waxa la bani aadamka oo dhan ayaa ilaahay yiri waa karaameynay muslimiinta gaar uga ma dhigin laakiin bani aadamka ilaahay abuuray oo dhan ayuu ilaahay yiri waa karaameyn karaamadii bani aadamka inta ka soo tageen oo tii gaarkeeda muslimiinta ka soo tageen oo tii Soomaalinimada ay ka soo tageen ay dadka tarab u laynayaan waad aragteen sidaas daraadeed meel ay diinta dhaqankeeda iyo qiyamkeeda ay ka soo galaan ma jirto alxamdulillah dadka Soomaaliyeed maanta way garteen culimada Soomaaliyeedna muxuu ahay way dhiiratay dadkana way u sheegtay dhaqankooda waxa uu yahay sidaas daraadeed guulaha maanta aan gaarnay waxaa sabab u ah dadka Soomaaliyeed oo yiri bas kifaaya enough is enough dhaqanka dulinimada ku salaysan ee nimanka la yiraahdo khawaarijta bas intaas nooga filan tahay waa dhamaatay meeshaas ma aha ciidan kaliya ma aha muxuu ahay hub iyo qoryo iyo xabado iyo madaafiic la tuuro kaliya waa shacabka Soomaaliyeed ee gudaha Soomaaliya ku nool ee u istaagay inay heeriyada iska tuuraan inta dhimanna waa ku daba joognaa waana diyaar gacantay noo haatinayaan
warana soo gaarayna leeyihiin waana gaarayna haddii alla yidhaahdo biyo soomaalidu waxay ku maamaadaa biyo sacbadaada ayaa looga haraad baxaa ama looga haqab baxaa dalka Soomaaliya dhibaatadii iyo wixii ka dhacay mas'uuliyaddeeda annagaa iskale wanaagga imaanayana mas'uuliyaddeeda annagaa iskale caalamku wuuna kaalmeeyey wuuna na kaalmeyn karaa laakiin dowlad nooma dhisi karo dowlad dadka Soomaaliyeed oo keliya ayaa dhisan kara ayanaga oo cadowgeena gudaha sida khawaarijtana meel iska dhigno cadowgeena dibadda kuwa badan oo jiro oo jecel Soomaaliya meesha ay joogto in ay joogto ayagana maxaan ku iraaday iska waxay dalka waxaan nasiib u yeeshay inaan noqdo madaxweynaha ugu horeeyay ee ku meel gaarnimada kadib Soomaaliya madaxweyne ka noqdo 2012 maalintaas waxaan bilownay dagaalka maanta aan wadnaa maalintaas aan soo bilownay dalka inaan khawaarijta ka xoreyno intaasoo degmo ayaan xoreynay nidaamka federaalka oo buugga dastuurka ku meel gaarka aan noogu qornaa kaliya ayaan dhaqan gelinay oo aan dhisnay haykalkiisii waagaas maanta waxaan u taaganahay wixii waaga xigmadii ama halhayskii 2017 doorashada markay ahayd aan iyo 16 qabyo qofkeeda dhameystira ah dhamaystirkii haddaan ku raad joognaa insha Allah markaan ayadoo qabya ka tagmayna ayadoo dhammaystiran tahay ka tagaynaa gaariga hadday tahay dib u xoreynta dalka iyo hadday tahay dhammaystirka dastuurka iyo hadday tahay xoojinta federaaleynta dalka intaba muxuu ahaay waa howlaha si siman ee isbarbar socda u wada socda waaye waana ka libkeenayna insha Allah ilaahay idinkiisa dalkeenu waxa aan rabnaa ama baahida aan qabnaahay aad iyo aad ayay u badan tahay waxaan naga maqana aad iyo aad ayay u badan tahay laakiin wax baan qabsanay wixii aan qabsanay haddii aanan ku faraxsanaanin oo aanan jeclaanin oo aanan maxaan ku iraaday ku faanin inaan wax qabsanay waxa faraha badan noo dhimanna ma qabsan kareen dalkan Soomaaliya la yiraahdo labadii sano ee la soo dhaafay deynta waana laga cafiyey 2012 2013 aan bilownay deyn cafinta intaas way soo socotay maamulkii aniga iga horreeyay dabcan way sii wadeen waxbay ku dareen annaguna hadda fursad nasiib kale ayaan u yeelana annagoo joogna inaan deyntiina laga cafiyo dagaalka cunaqabataynta hubka in laga qaado sidoo kale ku meel gaarnimadii markaan ka baxnay dagaalkii aan bilownay oo ah 31 sano kadib cunaqabataynta hubka waana laga qaaday taaramkii hore oo aan madaxweynaha ahaa cunaqabataynta hubka waana laga yareeyey nalagama wada qaadin laakiin waana laga yareeyey taaramkan waa ilaahay maadii waana laga wada qaaday complete waxay ahayd tallaabo labaad oo ayadan aan ku guuleysanay oo aan meel gaarsiinay dalka Soomaaliya dadkeena waa ogtihiin waa dad ganacsato ah waa dad maxaan ku raad gadisley ah waa dad socdo oo suuqa xorta iyo dhaqaalaha furfuran aaminsan waay siyaasiyan dalka waxaan u doornay modelka ah in dhaqaalaheena uu noqdo dhaqaalo private-ka ay wadaan oo ay riixaan oo private-ka ku salaysan oo dhaqaalo furan oo suuqa xorta iyo suuqa furan intaba ku shaqeeya sidaas daraadeed waa inaan u meel daynaa qawaaniinta investmentiga ilaalinayso qawaaniinta hantida gaarka ilaalinayso dhammaan qawaaniinta xogta gaarka ee qofka iyo shirkadaha iyo ay leeyihiin ilaalinayso qawaaniintaasoo dhammaan sameynay dalka u sameynay sidoo kale Soomaaliya waa dad yar marka ummadaha adduunka loo fiiriyo suuqay u baahan tahay ee badeecadeeda u iib geysato waxaan ku darnay suuqa bariga Afrika oo yani 200 milyan ah dalkii 8aad aan naqanay oo suuqaas ku biira
dadkeenu dalalka suuqaas joogaaye ka tirsan xubnaha ka way joogaan. Kenya waa ognahay waxa aan ganacsi iyo hanti iyo maalgashi ku leenahay. Uganda waan ognahay waxa aan ku leenahay. Tanzania sidoo kale, South Sudan sidoo kale, ilaa Rwanda iyo Burundi waa jirnaa, ilaa DRC waan jirnaa. Dadka Soomaaliya way jiraan. waxaan sameynay kaliya jiritaankoodaas iyo joogitaankoodaas iyo ganacsigoodaas waan sharciyeynay inay xuquuq yeeshaan oo dalalkaasi aanay marti ku ahaanin ayaan ka shaqeynay waana dhammaystiraynaa waxyaabaha yaryarka noo dhiman muddo sanad ah dalalka qaarkood dhowr sano ay ku qaadataa muddo sanad ah ayay nagu qaadatay in aan si xubin buuxda aan ka noqono maxaan ku yiraahdaa suuqaas وانا سي بلارين دونا سوقي كلا انا كلنا وحنا وحا انت دheer oo rabaa inaan ku daro dalkeenu waa dal qani ah aad iyo aad ayuu ilaahay adduunyada meel muhiim oo dunidu dhan ay jeceshahayna ilaahay waa nagu abuuray oo waana dejiyay khayraadka ummadaha adduunka in badan oo kamid ah aanay haysanin ilaahay waa na siiyay hadday tahay bar hadday tahay beer iyo hadday tahay bad intaba laakiin haddana waa ku dhex gaajaysanahay dalkaas sidaas qaniga u ah yaan ku dhex gaajaysanahay waxaan ugu dhex gaajaysanahayna waxay tahay dowlad la-aan ama dowlad nugul oo dowlad nugul ah dowladnimadeena way jirtaa dowlad la-aantii waan ka nimid 10 sano dagaal sokeeye aan ka soo baxnay 12 sano oo kumeel gaar nidaam kumeel gaar aan ka soo baxnay 12 sano kale oo dowlad rasmi ah ayaan wadnaa oo ku soconaa waa soo korinaa laakiin inaan intaa ka sii dheerayno ayaana laga rabaa dadka waxaa la yiraahdaa waayeelku caruurtu habeenkii cabsataa waayeelkuna maalintii xaajo gardarro wax walba ayuu waayeelku maalintii oo dhan iska ilaaliyaa oo ka cabsadaa caruurtuna habeenkii dhurwaaga iyo maxaan ku radaa libaaxa iyo baalka ay ka cabsataa annaga maanta waxaan ku sugannahay nabadda iyo dowladnimada iyo hor u socodka dadkeena qaarkiis inay ka cabsadaan oo ay jeclaadaan meeshii aan joogno inaan sii joogno oo aanan ka bixin muxuu ahay wixii aan ku jirnay iyo duruufii aan ku sugnay cabsidaas marka waxay keentay waxaad arkaysaan oo qaylo ah oo yeeraya hadday tahay maxaan ku irahdaa social media hadday tahay idaacadaha hadday tahay muxuu ahay ma aha dad caadi ah dad mas-uuliyiina mas-uuliyad sheeganay waxaana si daraa dad Soomaaliyeed oo diasporada qaarkood ku soo noolaaday oo wadamo nidaam iyo sharci iyo dowladnimo ka jirto ku soo noolaaday muddo yaqaano faa'iidada dowladnimada iyo nidaamka iyo sharciga ay leeyihiin maanta inay jidka u taagan yihiin qaarkood ay leeyihiin jooga suga meesha hal iswarsado bal noo kaadiye hala joogo dastuurka haddaan mathaal usoo qaado iyo 2012 ayaa dastuurka lagu ansixiyey convention gole Soomaaliyeed oo 800 iyo dhowr qofood ayaa isu yimiday markaasay gacanta u taageen oo ay ansixiyeen laakiin maxay dhaheen muddo sanad ka yar ha lagu dhammaystiray dhaheen baarlamaankan aan dooranay markaas waa baarlamaankii aniga i doortay 2012 ha dhammaystira dastuurka 12 sano kadib dastuurkeenu weli ma dhammaystirin 12 sanana dastuurka waa kasoo doodayna inta ku shir xagga ku shir guddi samee guddi kala samee baarlamaan kale waa kasoo dooday dood iyo iswarsi iyo falanqayn uma dhinna dastuurka 12 sano waqti nagu filan waaye oo dastuurka soo doodno dadkii aan nahay doodii dastuurka ku meel gaarka waa dastuurka ku meel gaarkeed 15 cutub oo ka koobnaa waa 15 kiisa cutub waa intaan soo kala dhigdhigayn 12 sano dooda aan ku qanci weyne dadka wali u sii hibanaya in ay sii joogto wali la sii doodo la sii wado 12 sano kale dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal waqti nooma dhinna dastuurka ku meel gaarka waxaa ku qoran sida dastuurka ku meel gaarnimada looga saarayo
si dastuurka dib u eegista iyo dhaqangelinta si dastuurka kumeel gaarka meel loo saaro maalintii la sameeyay 12 sano ka hor Soomaaliyadii joogtay maanta ma joogto Soomaalida 12 sano ka hor ayaa maanta jirta waxaan u baahanahay marka Soomaalida maanta iyo midda bari soo socota inaan fogaan arag inta ka yeelano aan ku salayno adduunyada sida ay u nooshahay dawladaha adduunku sida ay u shaqeeyaan ayaan rabnaa inaan u noolaano oo aan u shaqeyno Soomaaliya ma sii ahaan karto god madow oo muxuu ahaayay al-shabaabka iyo burcad badeedka iyo kan balaayada ka shaqeeyo dhan ay ku dhuntaan inay sii ahaato ma yeeli karno ma awoodin intaa ka bad adduunyaduna nagu aqbali mayso Soomaaliya god madow oo bahalo ku jiraan inay ahaato shabaab muxuu Soomaaliya u joogaa ISIS maxay Soomaaliya u timid u joogtaa hal sabab waaye Soomaaliya waxaa ka jira dhul aad iyo aad u ballaaran oo muddo aad iyo aad u dheer maamul aanu ka jirin argagixisaduna waxay ku bulaashaa meesha maamul aanu ka jirin ama maamulkeedu uu daciif yahay nugul yahay ayay ku bulaashaa waa sababta keliya ee ay shabaab iyo argagixisadu Soomaaliya u timiday Soomaaliya mugaan fiirino meelaha maamuladu ay ka jiraan si kasta daciif u ahaadaan ama u nuglaadeen waa ku yari raadka argagixisadu waa ku yari ama ma kama jiro meelaha maamul la'aanta muddo dheer soo ahaa ama maamulkoodu aad u nugul yahay waa meelaha ay ku hareen ma si aqbali karna marka dawlad nugul waxaa afka qalaad ugu yiraahdo fragile state inaan si ahaano man waxaan fragile state nimada nagu sii hayna waa dastuurka qabyada ah waa inaan dastuurka qabyada ka baxnaa waa inaan nidaamka adduunyada ay taqaano oo la isu doorto oo la isu mathalaahi aan qaadanaa dhammaantiin marqaatiyaad ka ahaydeen marqaatiga nool oo jooga maanta ayaad tihiin shalay mugii siyaasadda loo tartamayo doorashada dhammaantiin dadka Soomaaliyeed waxaan ka ballan qaadnay dastuurka inaan dhammaystirayno anaa iri saaxiibadii kale oo maxaan ku raadayay doorashada uu istaagay oo dhammaa yiri wax ma sameeynin aniga gaar oo kale oo aan ahayn ballan qaadkii aan dadka ka ballan qaaday inuu fulo ballan qaadkii shalay aan dadka ka ballan qaaday dastuurka inaan dhammaystirayno wadna dastuurkuna sidiisaba waa living document meel inta la dhigo bis waa dhamaaday muxuu ahaa meesha saan dhignay ma aha aayado quraan munazal ma maanta la dhammaystira waxba ka dhiman berri waxba wixii maanta qurxoonaayo sameeynay berri waxba iska bedelay waa la bedela berri dambe waxba iska sii bedelay haddana waa la bedela laakiin riyada beenta dadka aan loo sheegin oo ah inaan haddaan joogno inaan berri aan soo saarayno muxuu ahay wax no ma dastuurka waa dhammaystirayna ilaahay idankiis duruufteena maanta wax ay saamaxayso oo maanta suurtagalka ah xikmadii ahayday maxaa suuraabaa ka rol waxa quruxda badan ee fiican ee aan suurta gelaynin duruufeena waa jeclaanayn Soomaaliya in ay Norway oo kale bariba ay ahaato laakiin Norway maanta meesha ay joogto waxay ku timiday safar dheer oo muddo dheer ay soo socotay ku timiday maanta marka anaga waxaan noo suuraaba aan sameeyay dastuur inaan dhammaystirno doorasho qof iyo codan qabano khawaarijda dalka ka saarno dawladda iyo xukunka dawladnimada dalka inaan ku soo celino dadkeena sharaftiisa iyo karaamadiisa aan soo celino booskii dunida aan ku lahayn inaan xaqiijino oo aan dib u soo istaagno konton iyo 4 sano konton iyo ka hor ayaa noogu dambeysay inaan qaramada midoobay golaha ammaanka qaramada midoobay aan xubin ka noqon maanta golihii aan xubin ka nahay meelihii kale oo shalay muxuu ahay African Union haday tahay IGAD haday tahay jaamacad carabta haday tahay maxaan ku iraahdaa meel kasta oo aan shalay xubin ka ahayn aan dib u soo noolayno xubinnimadeena kursigeena waa ogtiin muddo dheer banaana
oo ciidano ku fadhino dad dalalka dariska nala ee xarafka sa nagala bilowda ay boorsooyinka saara jireen shirarka marka la yimaado alxamdulilah maanta taas waa fadhinaa waa joognaa Soomaaliya is there waa fadhinaa waana fadhi doonaa gaaliyo marka cabsida aan yarayno mustaqbalku waa qurxoon yahay Soomaaliya fiican dawlad fiican leh barwaaqo ah degan khayraadka ilaahay si ka faa'iideysato oo isticmaasha ayaan yeelanaynaa dawladnimada kama bilaabi karno meesha Norway maanta ay joogto kama bilaabi karno laakiin Norway maanta meesha ay joogto waa higsa karnaa muddadii ay Norway ku soo gaartay meeshaan muddo ka gaaban muddadii meeshaan ay ku soo gaartay muddo ka gaaban ayaanan muxuu ahay yaan Norway muddo ka gaaban ayaan ku gaari karnaa meesha Norway ee maanta ay taagan tahay dadaalkeeda haddaan la nimaado aqoonaan leenahay yacni dadkiinii dibadda usoo baxay aqoon weliba ay aad ugu tilmaamayiin ayay yeesheen haddaan dalkii meel degan oo lagu soo noqdo aan ka dhigna aqoontaasoo dhammi way noo soo noqon doontaa inta dalka joogtana aqoon la'aan mayne waa ka shaqeynay inay jaamacada jiraan wax walba jiraan aqoon xoogan oo fiican ayaa jirta maanta Soomaaliya aad iyo aad ayay aqoonteeda iyo dhinaceeda u dhisan tahay wax badan waa noo dhiman yihiin caruur badan oo Soomaaliyeed oo waxbarashada da'deedii dhaaftay way jirtaa laakiin generationskaas ama jiilashaasna si kale loo xalliyo oo farsamo aqooneed ay leedahay waan u xallin doonaa waxaan rabaa inaan guud ahaan jaaliyadda Norway iyo jaaliyadaha Yurub joogo dhan aan aad iyo aad u ammaano roolka iyo firfircoonida muddada kooban ee aan dalalkan joogno aan ka qaadanay oo caawana halkan laga sheegay 7 ka mid ah 8 muxuu ahay gobol ee dalkan ugu muhiimsan Soomaalidu inay ka firfircoon yihiin siyaasadda iyo maamulka iyo talada ay ku jiraan waxaan rabaa inaan si gaara ugu hambaliyeeyo oo maxaan ku raaa aan ugu bogaadiyana xildhibaanadeena xildhibaan Maryan waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad ayaan muxuu ahay runtii ayaan ugu faraxsanahay in ay dadka Soomaaliyeed meeshay joogaanba muuqaal waana sida aan nahay ilaahay naga dhigay haddaan Nairobi haddaan joogno waa muuqanaa Oslo haddaan joognona waa muuqanaa Soomaaliya markaan joogno xamar markaan joogno inaan sidoo kale u muuqano adduunka uuna arko waayo waxaan dadaalkeeda ku jirnaa mar dhowna aan gaari doono jaaliyada shalay iyo maanta Oslo ayaan meelo badan yaan ka dhex maray oo aan ku socday waa fiirinay dabcan dal qurxoon aad iyo aad maxaan ku raadayay u degan oo wanaagsan ayaan shalay waxaan tagnay meesha laga maamulo sovereign fundka Norway leedahay waxa aad iyo aad aan u jeclaystay ama ajab geliya ama aan barana waxay ahayd yani in dulqaad la yeesho tartiib Norway maalintay oil and gas yeelatay iyo maalintay sovereign fundka samaysatay 25 sano u dhaxaysay Norway maalintii ay oil and gas heshay iyo maalintii xataa cashuurta sharciga cashuurta oil and gas ay degsatay muddo kala u dhaxaysay so intaas waxaan dareemaynaa yani waxay ku timiday maantana waxay ku ammaanantahay Norway inay tahay wadamada adduunka ugu fiican dhinaca maareynta khayraadka dabiiciga ah natural resource management-ga dalalka adduunyada ugu horeeya inay tahay ku daysi mudan waxbarasho mudan laakiin laguma soo gaarin maalin iyo 2 iyo sanad iyo 5 sano iyo 10 sano iyo hal teermo hal qof oo madaxa ay joogtay iyo laguma soo gaarin dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya waxaan la rabnaa nidaam dawladeed oo soconaya oo sanadka ka dambeeya teeramka ka dambeeya ay u joogo qof iskama joog hal madaxweyne oo hal ra'iisul wasaare oo Norway inta soo bilaabay maanta jooga oo soo gaarsiiyay meesha ay gaarsiisay ma jirto Soomaaliya sidaas aan rabnaa in ay qor isku dhiib ahaato teeramka nin walba Soomaali ah ama gabar walba Soomaali ah
ومسؤوليات لو دي بقى أنت كفكر إذا كفكر أما كفكرته ورمدة يرتا إدجوكتا محاك كتجي أول ضحية ووحي جامع يا علي عاش كتجي واي محل ضحية وإنه قفك كفكرة لكن أنا إن جوجج علايا dadka Soomaaliyeed shalayna waa muujinay xukunka iska joog in aanu macna dhadhan noogu sameeynin laakiin uu dhadhan noogu sameeynayo muddada yarta ay joogto maxaa qabatay waxaan qabanay waa ka tagnay kan naga taga markii la yiro qofka loo doorto waa joognay haddana wax kale qaban karnaan soo bandhigno waana lagu aqbalay waana Soomaalidu wax kasta khibrad iyo way aragnimo u baahan yihiin siyaasadda la sideeda khibrad ay yeelanayna maanta dalka Soomaaliya madaxweyne mar labaad la soo doortaa jooga gudoomiye golo shacab oo mar labaad la soo doortaa jooga gudoomiye aqal sare oo mar labaad la soo doortaa jooga khibradu iyo way aragnimada inay wax tarayso dadka Soomaaliyeed way fahmeen sidaas daradeed in fursadda la siiyo qofka oo mar kale la siiyo aad iyo aad ay wax tar u tahay qofka fiican oo niyadda san oo dalka in uu hore u socdo jecel ayay waxtar u tahay midka qaabka daran ee waxyaabaha qaab darooyinka ku mashquulsan waxtar uma aha dawladnimada aan ka wada shaqeynaa hadii aliira qayla dhaantana aan iska yarayno iyo maxaan ku raadayay liidashada dalka Soomaaliya markaan runtii yani iska dheer waxa waaye progress la taaba karo koow lama saddex la dhigi karo ayaa dadka Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliya ay sameysay waana sii wadeynaa waana sii kordhinaynaa mar kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway iyo jaaliyadaha kale ee dalalka Yurub dariska ah ka yimiday na soo salaamay na soo dhaweeyay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan sidoo kale u mahad celiyo xildhibaanada Norway ama heer deegaan ha ahaato ama heer muxuu ahay national ha ahaadeen sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xildhibaanadii dawladda Soomaaliya federaalka qaarkood xildhibaan odageena xildhibaan Black oo nagala joogo hadda ila hor muuqdo ayaguna inaan meeshaan isku aragno waa ku faraxsanahay dad badan oo halkan iyo dalalka Yurub ka tagay ayaa baarlamaankan xildhibaano ka ah labada aqalba dawladeena wasiir ka ah oo ku jira dadka Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed hadii uu duruuf inta keentay oo dal kale yimid oo ka qaatay documenti wali qawaaniinta Soomaaliya way ogolaatay qofku inuu laba citizen inuu ahaan karo laba muwaadin laba dal inuu noqon karo dabcan qawaaniin kala soo socoto oo taas sideeda maareyn doonto يعني دول citizenship كل سديسو إن لا ماري وباهي مركا قوانين أيضا مارينيس أو محن كل هذا آدي وقيحيس أيا طبعا دلك Soomaaliya إيمان دونتا سيد الدنيا دنبا أي ولادها مركا رير نوروي آدي أيا أمها سنتي Soomaaliya نبض الدنيا نبض أيا كشقيننا آدي أمها سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته